aniga maanta adduunyada way igu dambaysaa waana si khayr laana ku dhintay in magaalada Madiina aan ku shahiido oo Ilaahay dartii cadow iigu dilo Ilaahay baan ka baryo Ilaahay ducadii buu aqbalay Aisha radiyallahu anha aqalkeeday hordhiga meydkayga markaad qaadaan nacashkeed ugu ridaan aqalka Aisha hor joojiya galow ijaaz ruqsadii weydiiya in labadeedii saaxiibagtooda lagu aaso intii aan caafimaadka qabana waan weydiistay way idantay hayde si walba way dhici kartaa inay ilowdana way dhici kartaaye iga idan qaada buuri markaas nafti markay ka dhacday nacashka la soo saaray Umar ayaa aqalkii Aisha la hordhigay magaalada Madiina qof ma joogo illa Umar wa ooya radiyallahu anhu limaada saaxibu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam niki cadaaladii islaamnimada adduunyada ku camiray ayaa maanta ka geeriyooday magaalada Madiina aqal walba oday iyo inan iyo islaan iyo maarataana inan iyo gabadh intuba waa la geeriyay waa la ooyaya waxa loo maleynayaa mar labaad nabi maxamed inuu adduunyada ka dhintay sida Umar loogu ooyay dhimashadiisa markaas ay u galeen يا أم المؤمنين عمر بن سيدنا جنازتي ميتكي عمر بن سيدنا ولو عمر باكلا دار مو يري أمير كي المؤمنين تهي أورنينا ويا خلاص نفتو عداي قد عضو أنا أمير ما هي أنا عمره وأضون إلهي أيا إلهي اللي هرقيني ولا الحساب تمي دوناي إيجا إجازة قاضع مرقاس يكون هذا عمر الفاروق أضونك إلهي عمر ميتكي سيما ودنا وحور رب الله وضع صاحبك تود إن لقوا عاصي مويد ميساوي مو فصحيسا مركز يترها انتو عافماتك قبل ويدسو وانو إجازيي حتى نوانو أقلادي أنا أصو دافيي إيك هذه بيكو ترقل كهلابتان كسوقات